بسم الله الرحمن الرحيم دمان umada Soomaaliyeed marka hore waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex qodob oo xasaasi ah qodobka koowaad waxaan rabaa inaan kaga hadlo maamul uu madaxweynaha Jubbaland u magacaabay gobolka Gedo inaan si fiican u faahfaahiyo umada reer Gedo maanta in la isu adeegsado oo dhexdooda dhibaatada dad kale laga abuuro iyagoo caqabado kale iyo dhibaatooyin badan ay markii hore haysteen in haddana iyaga madaxa la isu sii geliyo qodobka inaan si fiican u faahfaahiyo rabaa qodobka labaad ee rabo waxa weeyaan aan ka hadlo boobka hantida guurtada ah ee madaxweynihii dowladda Soomaaliya xilligii kacaankii Jeneraal Maxamed Siyaad Barre ummadda Soomaaliyeed uu u yagleelay taas oo hantidaasi loogu talagalay inay ummadda Soomaaliyeed intifaacsato meel kastoo Soomaaliya ka joogto hantidaas oo isugu jirta warshado xafiisyo dowladeed iyo hanti goobo kayd oo ganacsiyo ahaa sida la aligeed oo ummaddu ay ka wada faa'iidi jirtay ama ay ka wada faa'iidi lahayd haddii dib loogu yagleeli lahaa qodobka saddexaad ee rabay gabagabadii iyo gunaanadka inaan kaga hadlo waa systemka dhuxusha magaalada Kismaayo ka dhoofta sida ay uga dhoofto caqabadaha dadka la soo dirsa waqtiga ay dhoofayso goobaha la bandoogareeyo sida magaalada loo bandoogareeyo ee dhibaatooyinka ummadda soo gaadha iyo sida u soo gaadho baan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u faahfaahiyo haddii aan ku hormaro qodobka koowaad ee maamul samaynta gobolka Gedo madaxweynaha Jubbaland waxaan leeyahay shalay baa waxaad shacabka reer Gedo ku tagrifal awoodood ugu geysanaysay dowladdii Kenya ka jirtay xilligii madaxweynihii Kenya ee Uhuru Kenyatta taasoo dad shacab ah aad ku leeyin jirtay oo diyaarada lagu duqeyn jiray maanta dowladdii federaalka inaad intaad u adeegsato haddana aad la hoos gasho dadka reer Gedoodka iyaga dhexdooda la iska hor keeno waa nasiib darre inteeda leeg xubnaha hadda la magacaabay ee ugu horeeyo gudoomiyaha وهذا أحمد ومقعبي عبد الله عبد جامع عثمان نور حاجي معلمو نستيح عبدي صالح إبراهيم مذوب محمد قدوميها شباب وحالي هاي كفو هذا إن دتكينا ليدينا ديك سدو كفو هذا إن دتكينا عضليسان كفو هذا إن دحدينا أي قماض وكدح باللامة ورياضو ميلو وضع حلدي أي شيرين iyadoo dadka reer Gedo aan niis la korin iyadoo dadka reer Gedo aan la wada hadlin war dadka reer Gedo ma 24 saac haddana dhexdooda miyaa dhibaato laga dhex abuuraya sida la aligeed waxaan anu kula talinayaa Axmed Madoobe lama hadlayo Axmed Madoobe uu u bareeray dadka reer Gedo sidoo dhibaato ugu geysan lahaa Axmed Madoobe uu u bareeray tacadiga iyo dhibaatada uu dadka reer Gedo la dabacsan yahay sida la aligeed lama hadlayo anigu Axmed Madoobe iyo waxa la hadlaba waxaan la hadlayaa عاد قاتيال هالنقطة حداد عاد قاتيال نقطان وهالكذا وحنيدين شيء الشعب كريه جدود حوق لغما مقونين كرا شعب كريه جدود وحب وباهين دولة حرة دولة عدالة دولة ديمقراطية دولة وزراء قلعة لكن دولة دكتاتور هجامية دولة كلية تلية فديدة أو حرمرة الحين أو ربعين وضد كريه جدود بابيو وحويان تذكري قدد مدونيان مدة لبعض وحنا اللي الشعب كجاهلين تقيبتود أيين اللي أديك سنة يتذكري قدد بانوسو دولة يتذكري قدد واتتصوم عليه واتتصوم على لماذا شعب واتتصوم على لماذا يكون تاع تذكري قدد ننكي آمسن وحي نعبيين وقادين وجاهل لماذا وعادية ما كعجة وعادية حماء مسك حميدة تذكري قدد واتتصوم عليه وحي جدين سيستم كلي تريعة فرديت كع waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed inuu ragaadiyo ugu talagalay dadka reer Gedo waxay rabaan maamul wada ogola dawladda Soomaaliya waxa looga baahan yahay inay badbaadiso dadka reer Gedo war in ay dalka war macal shabaab waxa uu qadaran dadka reer Gedo Axmed Madoobe waxa la hadlaa Axmed Madoobe iyo waxa la hadlaa Axmed Madoobe maanta heer wuxuu gaaray dadka reer Gedo dormiis wada hadal la wada korin bal dad wax kala tabanaya oo wada hadlin haddana in iyaga dhexdoodii maamul loo sameeyo madax la isu galiyo oo xabado isu qaataan oo isu daraad bay heedo ceel waq lagu weeraray dadka reer Gedo Axmed Madoobe ciidan uu magaranaysaa ku ururnay bartaas dhibaatada weydeen ka dhacaysay sida la aligeed maanta tii tulamida in uu sameeyo rabaa dadka reer Gedo inuu nashaqsi ka harin laakiin dadka reer Gedo waxaan leeyahay inta ay gabadh fool idinka nooshahay dameer xumadaas ay yeelina علاقات كستو إيدين كإيدين كذا شيء ولا إيدين سو إيدين كذا ماذا حبت كذا نفتا
madax xabad kaga dhufta caada qaad kastoo leedin soo adeegsaday kan caada qaatan noqonina waa alxamdulillaah rabbil caalamiin waa nin Soomaaliyeed oo dadnimada iyo dawladnimadiina iyo horumarkiina jecel laakiin ka aan jeclaynay caada qaatay ee shilin la soo siiyo madax xabad kaga dhufta cadowga isaga idin kaga daran wallahi billahi tallahi cadowga shalay idin duqeynay ee Uhuru Kenyatta uu hogaaminay asaa idin kaga daran sida la aliga dadka reer gudud waxaan leeyahay war isku tashta war midooba war waxa weeyaan 24 saac propaganda umada la dhex dhigaa oo leeyahay dadka reer gudud waxay nacayb u hayaan dadka kale ee beesha kale ilmaadeertooda war dadka reer gudud wax nacayb u hayaan ma jiro beesha ilmaadeertooda sida la aligeed waa darayste waa dulli waa khaa'in wadan qofka propaganda noocaas fidinaya doonaya inuu imada isku arkeeno waxaan leeyahay marka xubnahan hadda Axmed Madoobe uu magacaabay ka feejignaada war Maxamuud Sayid Aadan baa masawira oo wax uu qabtay matalaad inaan maanta ku haysan dadka reer gudud wax matalaad waa madaxweyne ku xigeenka Jubbaland baa lagu leeyahay Maxamuud Sayid Aadan warqad oo saxiixana meel kama socoto hal maxbuus oo wallahi fi'at lagu soo xiray magaca ay baan ku dhartay xataa ma tamaynan karo wallahi oo billahi oo tallahi maxbuus fi'at lagu soo xiray wallahi xataa ma tamaynan karo askari istaafkiisa ana adduunya xataa ma tamaynan karo oo ka gaabsada asaga dullinimo ku nool asaga wuxuu ku nool yahay yasmo asaga bahdil ku nool dadka reer gudud bahdil ha qaadanina idinka dhexdiin hadii la isu keen adeegsadana kuwa la idin soo adeegsado barta xabad kaga dhufta waa caada qaatayaal Soomaalina anfici maayaan idinkuna idin anfici maayaan dadnimana ma leh waa dulliyaal dullina waa la madaxa laga toogtaa madaxa xabad kaga dhufta dadka reer gudud intaas leeyahay waxaan rabaa qodobka labaad ee rabay inaan ka hadlo boobka hantida dadweynaha oo Axmed Madoobe sida bareerka u iibsaday dad shakhsiyaadana uu ku wareejiyay taasoo ah hanti madaxweynihii dawladii kacaankii Generaal Maxamed Siyaad Barre umada Soomaaliyeed in ay ka faa'iideysato uu yagleelay hantidaas oo dad shakhsiyaad ah lagu naasnuujiyay laguna wareejiyay kaydkii haamihii shidaalka ee dawladii kacaanka ay ugu talagashay tuubooyinka shidaalka ay ka soo qaadaan inay kaydka haamaha shidaalka ku shubaan kaydka haamaha shidaalka oo ku yaala kasoo horjeedka dekada haamihii shidaalkana weli ay sidii ansaartooda u taalo ilaa ay xilligii kacaanka wax ka dambeeyay ama maamul ka dambeeyay ama al-shabaab ama khawaarijtii wadanka soo martay xataa ayna ku daqaqabeen laakiin Axmed Madoobe si bareer oo shakhsiyaad gaar ah uga iibsaday tiyaatarkii qaranka iyo golihii murtida iyo madadaalada oo hotel maamuus laga sameeyay shakhsi gaarana lagu naasnuujiyo shakhsi gaarana lagu wareejiyay golihii saraakiisha oo shakhsi gaar ah lagu wareejiyay fiisha traffic xaruntii trafficada ee umada Soomaaliyeed ee xafiiskii trafficada ee maamul ku shaqeyn lahaa ee umada ka wada dhaxaysay oo dad gaar ah lagu wareejiyay kaydkii galeyda ama warshadii galeyda oo ku taala kasoo horjeedka caymiska ama iridda xarunta madaxtooyada laga galo looguna magac daray kuumadaha bangigii dhexe oo laba qaybood ka kooban qaybtii bangigii dhexe oo laba dabaq ah ee bangigii dhexe qaybtiisii branchigii magaalada Kismaayo oo laba dabaq ka kooban iyo laba dabaq oo agaasimihii bangiga agaasimo kasto bangiga loo soo magacaabo loogu talagalay in la dejiyo oo guest house ah si uu musuqmaasuq ugu lug yeelan dawladii kacaanka aad bay u systemka dawladnimo u dhistay oo ay u xaqabtirtay dalka kaydkii cusbada oo ku yaala fi afmadow iyo inta u dhaxaysa caashadeero oo shakhsi gaar ah lagu wareejiyay rugtii ganacsiga oo ku taala Calanley xarunta Katarabiilka qaybteeda kasoo horjeedkeeda iyo qaybta Katarabiilka ay degan tahay oo shakhsiyaad gaar ah lagu wareejiyay bakhaar ganacsiga ay ka sameysteen oo ay haddana ku ganacsadaan oo guryo ka dhisteen xafiiskii wasaaradda beeraha Jubbaland iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ay deganaayeen oo ah dawladii dhexe xafiisyadeedii kana soo horjeeda hotel Adam oo lagu wareejiyay shakhsiyaad gaar ah xaruntii guulwadayaasha ama xeradii guulwadayaasha lagu tababari jiray oo ku taala wadada New Kismaayo boqolka guri gacanta mid ka qabanayso oo weli ansaartii guriyihii xeradii guulwadayaasha ay ku tababaran jireen ay ku taalo iyo dhulal kale oo aad u fara badan oo halkan ku soo koobi karin sida la aligeed waxaan kula talinayaa shakhsiyaadka sida gaarka ah ee sharci darrada u iibsaday hantidaas dadweynaha ee umada Soomaaliyeed min raas caseer ilaa iyo min raas Kamboni ka dhaxaysa ay leeyihiin inaad ka fogaataan waxaad iibsateen waa sharci darro berina waa idinku maxkamadeen
والله دولة عدالة markay timaado bari waa lidinku maxkamadeen sharci baan leeyahay la tiigsan waxaad iibsateen waa tuuganimo waxaad ku iibsateen waa musuqmaasuq hanti umadeed baad boob ku qaadateen waana laydinkula xisaabtamay waxaan leeyahay haddaad dowdihiin isdaba qabta kana fogaada shirkadaha shirkadda haas ee shidaalka koow bay ka tahay dahabshiil labay ka tahay dad ganacsi oo kale saddex bay ka yihiin waxaan leeyahay ka fogaada siiba shirkadaha magaca leh ee sida haas iyo dahabshiil isaga fogaada hantida maguurtada ee ummadda Soomaaliyeed ka dhaxaysa hantida ummadda Soomaaliyeed ka dhaxaysa haddaad ku dhaqanqantaan hantidiinaad ku waaysan nooca argagixisada ee waxa weeyaan qawaariirto kala maaleedal dhaqmi wax aad dhaantaan qawaariirta ma laha ninka dadka raba inuu doonta qabto ee hantidooda baabi'iyo ee hantidooda boobana berito waxa weeyaan qawaariirtu wuxuu dhaama leh al-shabaab saaka taran waa qawaariir ka wax qarxinaya isagoo isku mid sida la adliyeed boobka hantida ummadda aad ku haysaan ee sida sharci darrada gacantiina ku soo gashay inaad iska wareejisaan haddaad dowdihiin inaad iska celisaan waxaan rabaa qodobka saddexaad ee raba inaan kusoo gabagabeeyo systemka dhuxusha magaalada Kismaayo markay ka dhoofayso sida ay uga dhoofto dhuxushu waxay taalaa ama ay ku tahay godka dhuxusha oo ka tirsan xaafadda shaqaalaha magaalada laba loo qaybiyaa wadooyin baa la xiraa waxaa la xiraa dhuxusha godka dhuxusha wadada ka soo baxda ee toos u gashay dekedda isgoysyada ciidanka la dhigo koow waxaa ka mid ah isgoyska dekedda gala ee uu ku yaalo hotel Cascasey oo haddana loo bixiyay Madiina ka soo tag isgoyska labaad ee ciidanka la dhigo waa Qacle isgoyska saddexaad ee ciidanka la dhigo waxa weeyaan waa Fadlullah 1 isgoyska afraad ee ciidanka la dhigo waxa weeyaan waa Cilmi Shibiyo iyo Xaaji Jaamac wadada Taade Suqaysiin isgoyska afraad ee ciidanka la dhigo waa wadada Imberatoria Xaaji Jaamac korkeeda wadada Imberatoria aada iyo warshada hilibka isgoyska afraad ee ciidanka shanaad ee ciidanka la dhigo waxa weeyaan waa Cabdullaahi Shimbir isgoyska lixaad waa santarka isgoyska toddobaad waa isgoyska xashida ee Maria Khamiis ka sokeeya isgoyska sideedaad waa isgoyska Maria Khamiis ka shisheeya ee gala isgoyska Qalinle isgoyska sagaalaad waa isgoyska Cashadeerow tobnaad waa isgoyska aada Xamsi iyo wadada dalcadda aadaysay airportka ku geenaysay isgoyska 11aad waa buurta Fiyaaf Madow ama xirada booliska Fiyaaf Madow oo central ah oo dhowr wado ay u qaybsanto wadadii Sayidada xoolaha aadaysay iyo wado Siinay aada iyo wada aada Saamojo iyo wada Cashadeerow dib ugu soo noqota sida isgoyska 12aad ee ciidanka la dhigo waxa weeyaan godka dhuxusha laga soo raray isgoys ku yaala oo aada warshada Caafi 12ka isgoys ciidan baa la dhigaa qof bina'aan laguma arki karo cid alaala cidii xataa telefoon uu ka ifanaya intii laga qaado balay kala jibiyay xabsina loo taxaba 10 tignika ah baa lagu wardiyaa dhuxushaas waqtiga la rarayo bartamiya hadda sanadkii hore ee 2022 markabkii dowladda Cumaan ay qabanaysay Kismaayo laga raray ee uu lahaa Arinaaji ee Cumaan lagu qabanayay ee wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya uu ka hadli jiray ee warqadda ku qorayay waxa weeyaan waqtiga la rarayay waxay ahayd 12 maqribnimo ilaa 6 habeenimo maqribkii 12 saac oo maqribkii ah ilaa 6 saac habeenimo baa la rarayay oo saqbarkii intaas cid isu gudbaysa male magaaladu laba ay kala xirnayd alli iyo shaqaalaha oo qayb ah iyo faan oo qayb ah go'doon baheed guul wade faan oo qayb ah iyo farjano iyo midnimo oo gadaal oo niyo Kismaayo go'doon baheed dadka xaggaasna ma soo gudbi karaan dadka xaggana ma soo gudbi karaan maqrib ilaa 6 saac muddo 10 habeen ah waa bartamay sanadkii dagay waa ugu dambeysay wax la raro iyo wixii ka horeysay ummadda saas loo dhibaateeyaa تعدي أدو فربدنا ولو كيستا وقت قال الرأي طب كان بني آدم كا وحققنا بدل بحشل الرأي طبعا تيجي نكاين على لسا وحلو قلبي سيدا مدحويناش طبعا كابري مقالدو وبنتو مغرب لقب اللعبة إلا إلى حساب حبينهم سيدا لا أديت نينك حانتيدا أمدا بوابي سي شخصي uga faa'iideystay dhirtii ummadda Soomaaliyeed nabad guuriyay
maantana raba dadka Soomaaliyeed inuu madaxa isu geliyo ay yiraahdo waxa weeyaan qabiil baa nagu soo duulaya mar oranaya qolyo kala saa yeelaya inay dawladda Soomaaliya ilgaar ku fiirso madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne ma waxaad u dhaaratay inaad Axmed Madoobe xukunka ugu darto in Axmed Madoobe uu baabi'iyo dadka madaxda ah ee gado ku nool in Axmed Madoobe oo magaalada Kismaayo 14 kilomitir square laba jibaarana 1 kilomitir sa uga bixi waayay al-shabaab yaa qasac moojay joogtaa waa kontaroolka magaalada laga baxo iyo khawaarijtu joogtaa Axmed Madoobe intaas xataa xoreyn waayay kontaroolka afkeeda xataa xoreyn waayay inaad dadka ku sii hayso in dadku beela ay isu laayaan ma waxaad u dhaaratayba ma waxaad xilka u qabateen madaxweynenimada ee Soomaali heshiisa dunidana heshiis la Soomaali kala taga dunidana kala tagka ah bay macnaheedu noqonaysaa waa Soomaali kala taga dunidana kala tagka ah dadku inuu kala tago la is uur dooxo dhibaato ay dhacdo madaxweyne adaa sabab ah adaa dalkan u dhaartay adaa kitaab u maray baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa تعديga iyo dulmiga iyo dhibaatada ka taagan Jubbaland inay hoos u fiiriyaan war adduunka baarlamaanna waxaliya wadama dhul gariir ka dhaca baarlamaan baa xaliyo dawladda la xisaabtama wadama abaara ka dhaca baarlamaan baa xaliyo dawladda la xisaabtama war baarlamaanku ma inaad xilka ku darsataan baad baarlamaan u tihiin war ma inaan dawladda la xisaabtamin baad baarlamaan u tihiin maxaad u dhaarateen maxaa la idin soo doortay maxaa dadka aad matalayseen maxay idin soo doorteen war ma in waxaad xilka u haysaan oo la idin soo doortay danihiina shakhsiga ah inaad caruurtiina ku biilataan war inaad dawladda la xisaabtantaan oo dastuurka hagaajisaan oo laamaha dawladda la xisaabtantaan oo aad miiska uga yeedhaan oo laamaha amniyaadka uga xisaabtantaan oo fashil hadduu dhaco fashilka yimaado cidda sabab ay cidda ku lug leh shaqadiina weeyaan baarlamaanku inaad dalka badbaadisaan madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay Jubbaland badbaadi kaaga baahan tahay SCC badbaadi kaaga baahan tahay Soomaaliya oo dhan badbaadi kaaga baahan tahay haddii dhici weydo ummadda Soomaaliyeed way is urdooxi aabana idig aday ku dhigin Soomaali kala taga dunidana kala tagka dunidana ku kala tag